di nebi daawuud. nin la odhan jiray orya ina xanaan ayaa u baalhaaday inuu helo haweenay uu guursado oo nolosha la qaybsata, haweenay uu ku dego oo uu qiimo ku yeesho. wuxuu maskaxdiisa ku sawirtay haweenaydaasi sida uu rabo inay noqoto, ruux quruxi ku idishahay oo bilicdeeda lala ashqaraaro, haybaddeedana loo joogsado, ruux ay naagnimadeedu xaddhaaf tahay oo warkeeda aad la isugu wariyo. haweenay tilmaamahaas leh ayuu sawirtay oo inuu helo laabta gashaday kuna dadaal. ha yeeshee taas wakhti badan kuma u lumin, riyadiisii macaanka badnaydna muddo gaaban bay u hirgashay. wuxuu isha ku dhuftay kuna xasilay gabarh wanaagsan oo gabdhaha reerahooda ka mid ah, lana yidhaahdo saabiq ina shaa'ic. markuu arkayba si deg deg ah ayuu qoyskoodii ugu tegey. wuu ka doonay oo lana xidiiday, xiriir adagna wuu la yeeshay. maalintaas bay laabta u degtay, farxadiina ku idlaatayoo ay si wacan hurdadii uga soo go'day. wuxuu maalintaa kadib hawl ka dhigtay inuu u gogol xaaro nolosha wacan ee uu jeclaan lahaa inay afadiisa ku wada noolaadaan. nolol ay raaxo oo idili ku dhan tahay, aadna u xasiloon, laguna naaloodo. wakhtiga ayuu dherari jiray. wuxuu mar walba ka fakeri jiray maalinta qiimaha weyn u leh ee guur kadib isaga iyo afadiisa uu rabbi meel ku kulmin doono. orya wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah, waxaana jira dayn uu dalku dhallinyarada ku leeyahayoo inay bixiyaan ay mar walba ku qasban yihiin. sow kolka inuu isdiyaariyaa lama gudboona. sow ma habboona inuu ka mid noqdo ciidanka faraha badan ee uu nebi daawuud nabadgelya korkiisa ha ahaatee ururiyey, sidaasna uu eebba dartii shahaadka kaga qayb galo. inankaas geesiga ahi taladii ma labalabayn, shaki kama gelin xaqa loogu leeyahay inuu waajibka jahaadka guto. markaas buu ciidankii nebiga ka mid noqday, isaga oo jacaylku ku wen yahay, aadna u tiiraanyaysan. ha yeeshee naftiisii ayuu maaweeliyey. wuxuu ku sasabay maalmaha wacan ee ku soo fool leh. sow saabiq uma doonana oo isaga uun sugi mayso. sow isagu iyada ma laha, iyaduna isaga ma laha. wakhtigu ha dheeraado, dalkuse ha kala fogaadee, sow iyagu isma hudhano oo aakhirka isuma iman doonaan, kob qurana kuma wada noolaan doonaan. haddii kolka ay arrini sidaas tahay, sow ma aha waajibka jahaadka inuu soo guto, dabadeedna intuu soo noqdo inanta uu jecel yahay uu la aqal galo. allah ilaahi haa. ciidankii la diray ee uu isna ku jiray ayuu wakhtigii ku dheeraaday. maalmihii iyo habeennadii uu maqnaa ayaa intii la filaayay ka batay. duulaamadii iyo goobihii dirirta ayaa ku ballaartay. wax aan dulqaad ahayn oo oryo u bannaanaase ma ay jirin. intuu samir weheshaday ayuu jahaadka eebba dartii wax kasta oo kale ku iloobay, ilaa inta uu fulaayo qorshaha rabbi, ku talagelkiisuna uu meel maraayo. sidaan soo sheegnay, waxaa aad u dheeraaday askarigaas mujaahidka ahaa ayaamihii uu maqnaa. dalkiisii iyo wixii uu qaraabo lahaa ayay kala abaajiyeen. subax iyo galabba waa la jeedaaliyaa mase yimaado. isaga iyo ciidankii uu ku jirayba meel ay ka dhaceen ayaa la waayey. wuxuu u ekaaday nin laga quustay, rajadii imaatinkiisuna ay soo yaraatay. iyadoo sidaas looga samaysan yahay ayuu daawuud maalin maalmaha ka mid ah isha ku dhuftay. waa tuma ayuu isweydiiyey. waa saabiq ina shaa'ic, gabadhii sida wacan u kortay ee haybadda iyo quruxda isku darsatay, ruuxii eegaana u indhadaraandaray. nabadgelya korkiisa ha ahaatee, daawuud bay naftu ka raacday oo jeclaystay inay afadiisa noqoto. inuu reerahooda weydiisto ayuu intii muddo ah ka warwareegay. ha yeeshee taas uma uu baahnayn, maxaa yeelay ma jirin qoys ku dhiiran karay inuu nebiga eebbe ee wanaagga badan gabadh u diido. ma waxaa jiri kara sharaf uga weyn inay daawuud la xididaan? sow oryo lama waayin oo kuma tirsana dadka inay soo noqdaan aan rajada laga qabin. wakhtigii ay gabadhu u doonanayd sow ma dheeraanoo ma jiitamin, quusna lagama joogo. sababaha ayuu qoyskii inantu ka dhalatay marmarsinya ka dhigtay, iyadii oo xalaal u ahna waxay u aroosiyeen nebigii eebbe ee daawuud ahaa. markaas bay khayr iyo barwaaqo ku wada noolaadeen. hase yeeshee waxaa weli ifka ku noolayd arrintaa dhacday naf ay dhibaato ku ahayd, naf ay gamuunna kaga daraydoo warmar lagu mudmudaayo ay kala cuslayd. laakiinse hor iyo dibba taladu waa tan ilaah, isaga ayaa kuwa dhibban u maciina, inta walbahaarsanna u faraguda.
afadiisii cusbayd ee ay naftiisu jeclaatay ayuu daawuud ku faaraxay kuna ildoogsaday. markaas kadibna waxa uu si buuxda dib ugu noqday habnololeedkii lagu yaqiin iyo hannaankii waxqabad ee lagu ogaa. wuxuu ku dhaqmi jiray xeer uu degsaday oo muddaba uu dhowri jiray. wakhtiga ayuu u kala qaybsaday 4 qaybood. qayb naftiisa ayuu ugu talagalay, qaybna caabudka allihiis, qaybna kala saaridda kuwa wax isku haysta, qaybta afraadna wacdiga iyo hanuuninta qoladiisa. daawuudse nebi keliya ma ahayne boqorna wuu ahaa. aqalladii uu lahaa ayuu hor dhigtay waardiyayaal iyo askar u ilaalisa, weligiisna habkaa waxba kama u beddelin. wuxuu doortay inuu uunka wax u simo oo miisaanka garsoorka uu wax ugu qaybiyo. dabadeed maalin maalmaha ka mid a, iyada oo aan la filayn, ayaa irdihii guryaha daawuud waxaa soo hor joogsaday 2 nin oo wax walba ragga reer Israa'iil kala mid ahaa, markii laga reebo arrin qura oo dhaqankooda laga dareemay. ragga reer Israa'iil waxay ahaayeen rag u bartay hababka uu boqorkoodu ku dhaqmo, dabadeedna iyaga oo ogol kuna raalli ah u hoggaansanaa. ha yeeshee labadaani intay xeerarkii jabiyeen wixii la isku ogaana ka leexdeen ayay ilaaladii u yimaadeen. waxay weydiisteen inay daawuud u geliyaan. wakhtigaasina ma ahayn wakhtigii garsoorka iyo la kulanka dadka uu nebigu ugu talagalay. sidaa darteed ilaaladii ayaa u diiday oo iska hor taagtay inay u galaan ilaa la gaaro xilligii labadooda iyo kuwa lamidka ah loo ogol yahay nebiga eebbe ee wanaagsan inay la kulmaanoo ay hortiisa joogsadaan. ilaaladu ma ahayn kuwa garan karay awoodda layaab kale iyo mucjisada eebbe ee indhahooda hortooda ka socota. 2 nin cid kale ma ahayne waxay ahaayeen 2 malag oo muuqa aadanaha isku soo yeelay. kolley daawuud way u tegi doonaan, arrin culus baana dhex mari doonta, waxayna u gudbin doonaan xikmad run ah oo xeel dheer iyo xujo aan dabadeed hadal bannaanayn. arrinta ay xambaarsan yihiin waa mid nebiga eebbe u noqon doonta tusaale uu ku taamilo qaato. 2 malag ayaa kolkaa intay derbigii tafeen si kadisa ah mixraabkii uu ku tukan jiray daawuud ugu dhacay. wuu ka cabsaday oo ka argagaxay, maxaa yeelay waxaa lama filaan ku noqotay 2 nin ee hortiisa fadhida, iyada oo markaas ka hor cid u soo gelisay iyo cid kala hadashay toonihii aanay jirin. waxayse halhaleel ugu sheegeen inaanu baqin, iyaguna ay yihiin 2 wax isu sheeganaya oo midkood uu midka kale ka gardaran yahay. waxay ka codsadeen inuu si xaqa u kala saaro, garsoorka aanu garab marin, jidka toosanna uu ku hago. waxaa daawuud u muuqatay arrintani inay tahay arrin uu wax ka qabashadeeda ku qasban yahay oo aanu ka warwareegan karin. kolkaas buu isu diyaariyey oo inuu xukunkeeda rido u darbaday. muramadoodii ayuu dhegaystay. midkood baa wuxuu ku doodayaa, ninkani waa walaalkay, wuxuuna leeyahay 99 sabeenood, anigana mid qura ayaa iga dhacda. damac iyo hunguri uu ka adkaan waayey ayaa galay. kolkaas buu iga doonay sabeenta sukada igu ah inaan siiyo oo kuwiisa tirada badan uu ku darsado. markaan arrinta kala doodayna doodii ayuu iga badiyey, murankiina wuu igaga adkaaday, maxaa yeelay waa nin hadal yaqaanahoo iga aftahansan. ninkii kale ayuu daawuud xaggiisa u jeestay oo wax ka weydiiyey eedda loo haysto waxa uu kaga jawaabayo. markaas buu kiina wuxuu yidhi, waa run oo waxaan leeyahay 99 sabeenood, isaguna sabeen qura ayuu leeyahay. kolkaas baan damcay inaan sabeentiisa sabeenahayga ku soo darsado si ay 100 iigu noqdaan. daawuud baa kolkaa weydiiyey oo ku yidhi, oo arrintaas walaalkaa ma kugu diidan yahay? markaas buu ku jawaabay, haa. kolkaas buu nebigii aad u carooday oo inta si kulul u eegay ku yidhi, qorshahaaga haddaba kaa yeeli mayno. haddii aad ku sii adkaysatana sanka ayaannu kaa goyn doonnaa, wejigana waannu kaa fiiqi doonnaa. kolkaas buu ninkii la xukumay yidhi, taas haddaba adiga ayaa igaga habboon. waxaad qabtay 99 dumar ah, oryana mid qura ayuu lahaa. sidaasoo ay ahaydna tiisii intaad u hanqal taagtay oo aad isagii dhaafisay ayay hadda adiga afa kuu tahay, adiga oo aan xaalayn axdigii ay lahaayeen. hadalkaas xikmaddu ka buuxdo ee ay xog ogaalnimadu ku dhan tahay ayuu daawuud ku baraarugay oo aad ugu dhug yeeshay.
hareerihiisa oo aan ciid joogin ayuu jeedaaliyey arrinta meesha ku jirta iyo xaqiiqadii oo aan dabool saarayn ayuu ogaaday markaas buu inta sujuud la dhacay eebbe dembidhaaf weydiistay wuxuu ku dadaalay cafiga rabbi siduu ku heli lahaa markaas buu u dembi dhaafay gefkiisii ka tirtiray una gartay inuu weligiis haysto meeqaanka sare ee nebiyadiisa karaamaysan dhexdooda uu ku leeyahay nabadgelya korkiisa ha ahaatee daawuud marna kuma soo dhicin inuu ku kacaayo far uu canaan iyo ciqaab ku mutaysan karo ha yeeshee inkastoo uu rabbi darajeeyey oo agtiisa uu magac iyo meeqaan sare ku lahaa haddana wuu xisaabiyey dadka ayaa waxaa halkan lagu barayaa ha yaraato hase weynaatee inuu eebbe wax walba og yahay uunka oo idilna waxa ay falayaan uu kula xisaabtamayo dadweyne caadi ah ha ahaadeen ama nebiya ha ahaadeene dhegaystayaal daawuud waa nebi rabbi ugu deeqay dhammaan tilmaamaha wan wanaagsan ee uu nebiyada oo idil ugu deeqay wuxuu eebbe ku sifeeyey suuradda saad isaga oo ku sheegay inuu ahaa addoon cibaadadiisa xoog iyo adkaysi u leh addoon rabbi u noqosho badan subax iyo galabba buuruhu addoon ay la tisbiixsan jireen in shimbiraha loo kulmin jiray oo isaga ay u jajabnaayeen addeecina jireen inuu ahaa miduu eebbe xukunkiisa adkeeyey oo uu xikmad iyo nebinimoba siiyey fahmo iyo aqoonta garsoorkana uu ku galladay waxaa isna bukhaari iyo muslim ku soo arooray xadiis nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee nebigeenna laga wariyey oo macnihiisu yahay rabbi salaad wuxuu ugu jecel yahay salaaddii daawuud soonna soonkii daawuud habeenka barkii ayuu seexan jiray 3 meelood meelna wuu tukan jiray 6 meelood meelna wuu seexan jiray maalin wuu soomi jiray maalinna wuu afuri jiray mana carari jirinoo wuxuu ahaa mid alla u noqosho badan waxaa haddaba waajib ah tilmaamahaas iyaga ah innaga oo maanka ku hayna inaynu dhegaysanno wax walba oo nabadgelya korkiisa ha ahaatee nebi daawuud laga wariyo dhegaystayaal waa barnaamijkeennii taxanaha sheekooyinka qur-aanka maantana waxa uu ku saabsan yahay qoladii maalinta sabtida nabadgelya korkiisa ha ahaatee waxyaabihii uu nebi muuse reer israa'iil baray waxaa ka mid ahaa toddobaadkiiba inay maalin shaqada faraha ka qaadaan oo howl adduun oo idil ay ka joogsadaan wuxuu faray maalintaas iyada ah inay cibaadada eebbe u jeestaanoo barwaaqooyinka uu siiyey ay ka mahadnaqaan maalintaasi waxay ahayd maalinta jimcaad iyagaase waxay jeclaysteen maalinta ay cibaadaysanayaan inay noqoto sabtida oo ah maalintii uu eebbe abuurka uunkiisa ka faraxashay maalintaas oo ay iyagu door bideen ayuu eebbena ka yeelay oo ka aqbalay muusena wuu wacdiyi jiray oo intuu shiriyo ayuu waano iyo hanuuninba ula taagnaan jiray muddo dheer ayay reer israa'iil maalinta sabtida weynayn jireen oo ay eebbe ugu dhowaan jireen iyaga oo tasbiixsanaya oo baryadiisana badinaya markaas bay tiro bateen si aad ahna way u taran dhaafeen dabadeed tuulo lagu magacaabo aylah oo ka mid ah tuulooyinka badda cas ku yaal ayaa xilligii nebi daawuud nabadgelya korkiisa ha ahaatee waxaa degi jiray qolo faracii reer israa'iil ka mid ah waxay ahayd raadkii aabbayaashood iyo awoowayaashood inay ku joogaan oo maalinta sabtida ay cibaadada eebbe oo keliya ay u go'aan howlaha adduunyadana ka fogaadaan hadday kalluumaysi tahay hadday ganacsi tahay iyo hadday farsamo kale tahayba badda xeebteeda waxaa ku yiil dhadhaab laba ah oo cadcad oo kalluunku dhalaarta sabtida iyo habeenkeeda uu ku soo hirto kuna hoydo halkaas ayuu imaan jiray kuna tarmi jiray maxaa yeelay wuu ku nabadgeli jiray marba cid jilaabanaysaa haddii aanay jirin kalluunka u muuqda oo sidaas ugu dhow uma ay dhowaan jirin maxaa yeelay waxay ku howlanaan jireen cibaadada eebbahood waxaana xaaraan ka ahayd in ay jilaabtaan ama ay ugaarsadaan amaba ay howlo adduunyo oo kale ay faraha la galaan axadda habeenkeeda ayuu kalluunku xagga badda u dulindulcayn jirayoo moolkeeda ku ururi jiray kolkaas bay qolada reer aylaad waxay dhib ka mudan jireen maalmaha uu xalaasha u yahay siday u daban lahaayeen damac iyo hunguri ba'an baa galay dadkii magaalada degganaa qaarkoodii laabta ka jirhanaa oo iimaankoodu u yaraa nebiyadoodii wixii ay bareen ayay iska halmaameen wax badan oo lagu waanin jirayna way iska dhagatireen markaas bay tashi isugu yimaadeenoo ra'yi isweydaarsadeen waxay yidhaahdeen ma caqligal baa kalluunku maalintii uu agtayada ku soo batana inaan faraha ka laabanno
maalmaha uu cararo oo moolka badda uu ku fogaadana aanu jillaabashadiisa u nimaadno. dhib iyo dhibaato ayaa arrintan noogu sugan, waxaannu leenahay qolo talada wanaagsan laga indhasaabay. waxaa nagu habboon oo naga go'aan ah maalinta sabtida inaannu badda ku dhaqaaqno oo aannu kalluunka soo jillaabanno. sidaas baannu ku baahi beeli karaynaa oo aannu dantayada ku gaari karaynaa. dabadeed maalin sabti ah ayay baddii ku kallaheen. kolkaas bay kalluun tiro badan ka soo jillaabteen, iyaga oo aan daalin, wakhti badanna aanu ka lumin. wixii ay doonaan ayay ku sameeyeen, sidii ay rabaanna way u cuneen, way dubteen oo way shiisheen, si walbana way u bislaysteen, way ka dhargeen oo caloosha ka buuxsadeen. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. intoodii cabsida eebba ku jirtay ayaa ogaatay dembiilayaashu falka xun ee ay ku tallaabsadeen. kolkaasba intay u tageen wacdi iyo waano ula fadhiisteen una digeen. ha yeeshee taasi waxba uma ay kordhin, waxna kama reebin, waxayna ku sii adkaysteen qooqii iyo baadinimadii ay u bareereen. muuminiintii ayaa markaa aad u carootay, dabadeedna inta hubkoodii la soo baxay magaaladii hareereeyey, kuwii dembiilayaasha ahaana uga dhaartay inay soo galaan, maxaa yeelay waxay ahaayeen qolo daacadda alla ka baxday oo xadhiggiisa goysay. dembiilayaashii arrintaasi way ku cuslaatay, waxaana ku adkaatay maalinta sabtida ee uu kalluunku agagaarka xeebta ku badan yahay in laga afqabto oo aysan jillaaban. markaas bay talo u soo jeediyeen muuminiintii, kuna yidhaahdeen, magaalada annaga iyo adinku waannu wada leennahay, garna uma lihidin inaad naga eridaan. idiin dayn mayno, cid naga cayrin karaysaana ma jirto. waa dhulkayagii iyo ishii noloshayada. haddiise aydun ra'yigiinna ku dheggan tihiin, talada aad goosateenna aynaan waxba ka beddelaynin, magaalada inoo qaybiya oo aynu dhisno qaybtiinna iyo taayada derbi u dhexeeya, si qolo waliba meesheeda sidii ay jeceshahay ay iyadu ugu noolaato. muuminiintii waxay oggolaadeen inay magaalada la qaybsadaan, ayna dhisaan dayr adag oo ka qariya, kalana dhex gala iyaga iyo kuwaa daacadda alla ka baxay. qolo waliba qaybteedii ayay ku ekaatay. waxay dembiilayaashii iyagu ku sii adkaysteen cayaartii ay ku jireen iyo jillaabashadii xaaraanta ahayd ee ay ku madax adeegayeen. keliyo yaryar oo badda iyo magaaladooda isku xidha ayay qodeen. habeenka sabtida ayuu kalluunku keliyadaa soo raaci jiray ilaa uu irdaha aqalladooda soo gaaro. qorraxda sabtidu kolkay dhacdo oo uu noqosho maagana, waxay ku ceshan jireen biyo xireenno ay marinnada keliyada ka dhiseenoo marka uu badda u socdo aanu kalluunku ka gudbi karin. ha yeeshee kuwii muuminiinta ahaa kama daalin canaantooda iyo waanintooda. ciqaabta eebbe ee sugaysa ayay mar walba xusuusin jireen. waanadii kolkii ay dheeraatay, waxna ay ku qaadan kari waayeen, ayay mu'miniintii qaar ka mid ahi saaxiibbadood kula yaabeen sababta ay wacdiga ula daba joogaan qoladan amarka eebbe ku gacan sayrtay ee halaagga iyo caddibaadaba ka mutaysatay. dabadeedna way isaga tageen, waanadoodiina way iska daayeen, maxaa yeelay waxay ahaayeen duul aan waantoobin. dembiyadoodii ayay sii muquurteen, si walbana way u qooqeen, waxaana badatay hantidii iyo xoolihii ay lahaayeen. rabbi bay si xad dhaaf ah u caasiyeen, ugana xidhiir furteen, ilaa nebigiisii daawuud ahaa uu u dulqaadan kari waayey. markaas buu xagga eebbe u jeestay oo hiil weydiistay, kana duraansaday kuwaas dembiilayaasha ah inuu cadhadiisa ku soo dejiyo. dabadeedna inta habaarkiisii la aqbalay ayuu eebbe dhulgariir ba'an magaaladoodii ku gediyey. muuminiintiina intay argagaxeen ayay aqalladoodii ka baxeen oo sidaa ku nabad galeen. kuwii xumaha iyo dembiga dadka ka reebi jiray rabbi wuu badbaadiyey. kuwii kale ee daacaddiisa ka baxayna cadaab daran oo ay shaqaysteen ayuu ku markaday. markii xumidii laga reebayey ay ku sii adkaysteen ayaa iyagii dadka ahaan jiray waxaa rabbi u rogay daayeer aan